soo dhawaada khiyaarta maalmahan waan kala baadnay mashquul daran awgiis laakiin waa idinka diyaargelinaya waxaan rajaynayaa inaan jadwalkeenii hore kusoo laabano filinkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay tareenkan aad u jeedaan waxa uu u qaybsan yahay saddex qaybood qayb waxaa saaran askar qayb waxaa saaran dad sabool ah noloshooduna ay hooseyso qaybta kalena waxaa saaran dad noloshooda ay aad u sareyso oo ah dadka taajiriinta ama dabaqada sare haddaba ayni bilaabo muuqaalkeena maanta anigoo aan waqtiga idinka dhamaynin cuntadan aad u jeedaan ama dadka ay kala boobayaan waxaa laga sameeyey barambaro laakiin ma oga dadka meeshaan ku jira waa ay kala boobayaan wax kalena ma ay haystaan dadka meeshaan ku jira tareenka qaybtiisa dambe waa dad sabool ah oo nolosha ka dhacay halka qaybta kaleeto ay tareenka ay ku jiraan dad taajiriin ah oo aan ogeyn waxa adduunka ka socda way cabaan way cunaan way iska dhaansi gareeyaan xaflado ayay iska dhigtaan halka qaybta dambena ee waxay cunaan laayihiin xataa sanadama aysan qubaysanin qofka isku daya inuu meesha ka baxsado waa la ciqaabaa oo gacantiisa ayaa bannaanka loo bixinayaa qabowguna uu yahay -100 intaas kadib qofka wuxuu bilaabaya inuusan dareemin gacanta inay ku taala in kale ayadoo oo baraf noqonaysa qaybtan tareenka faqiiriinta ah waxaa ku jira hogaamiye lagu magacaabo Randi ninkaas oo ah tooraha filinka waxa uu meesha kula dagaalaa askarta intooda badan wuxuuna ka qaadaa ama ka aruuriyaa rasaasta ay ku dagaalami lahaayeen intaas kadibna waxa uu soo gudbiyaa kuwa macnaha faqiiriinta si ugu soo gudbaan qaybta kale ee tareenka si haba qayb imaanayeen markii dambe waxay imaadeen qaybta cuntada markay imaadeen waxay ogaadeen cuntada ay cunayaan cunto badan ayay ka heleen waa ay cuneen laakiin Randi waxa uu arkayaa nin Shiinees ah ama Kuuriyaan ah iyo gabadhiisa intaas kadib waxa uu u sheegayaa in uu furo albaabka maadaama uu aqoon u leeyahay sida loo furo albaabyada dadka waxay kala boobayaan cuntada Randi waxa uu ogaanayaa cuntada in laga sameyn jiray barambaro wuxuuna 17 sano oo tareenka ay ku jireen ay cunayeen cunto laga sameeyay barambaro laakiin dadka waa uu ka qariyay intaas ka bacdi qaybta xigta waxay ku arkayaan iftiinka umana dul qaadan karaan maadaama 17 sano aysan arkin wax qorax ah intaas kadib waxay u gudbayaan albaabka xiga gabadha waxay urisaa wax badan waxayna ku talinaysaa in albaabka la furin laakiin waa mar laga daahay sababtoo ah qaybtan waxaa joogta askar oo wajigu u xiran yahay waxaa lagu qasban yahay in la dagaalo intaas kadib Radam iyo kooxiisa waa ay la dagaalamayaan qaybtan wajiga u duuban yahay waxay isku hareereeyeen dadkii masaakiinta ahaa Randi waxa uu loo sheegay in uusan dadkaani halaagin naftooda waxa ay wataan midiyo iyo sidoo kale tafaasas waxayna u sheegeen in uu celiyo dadkan uusan naftooda halaagin meeshaana aysan gudbi karin intaas kadib waxa uu Randi xasuusanayaa inay soo socoto meel madow ama qayb ka mid ah tareenka uu hoos marayo intaas kadib markii qaybta mugdiga uu galay nimankii maaskiga wata waxa ay bilaabeen inay daartaan iftiin madaxooda ku xirnaa taas oo indhaha ay uga qabteen kuwii masaakiinta ahaa masaakiintana wax ay sameeyaan male ayaga oo sugayay marka ay ku dhici doonto midida intaas kadib wiil ka mid ah dadkii faqiiriinta ayaa taraq daaray halkaas dagaal qaraar ayaa wuxuu ku dhex maraya askartii iyo Randi iyo kooxdii la socotay meeshaas ayaana lagu baabi'inayaa naagtii wax hogaaminaysay waxa ay qaadanaysaa gabar ka mid ah Randi waxa uu galayaa xasuus hadda ka hor saaxiibkiisa ay cadow ay qabsadeen maskaxdiisa ayaa isku qasmaysa sidoo kale dad fara badan ayaa meesha ku baaba'ay intaas kadib waxa uu xasuusanayaa inuu cadow ka daayo laakiin waa mar xeeri fandhaal ay kala dhaceen gabadhana ay dhimatay intaas kadib fiidkii markii la gaaro odayga waxa uu ku talinayaa oo kooxda ka mid ah in dagaalkan la joojiyo laakiin Randi waa ay ka go'an tahay oo wax uu sameeyo ma lahan inuu hore u socdo maahane intaas kadib dagaalka ayay sii wadayaan waxa uu galay maalintii xigtay waxa ka yaabiyay in ay gudaha u galeen xarumo aysan weligood arkinin ayagoo oo gudaha u galay qayb ay yaalaan cunto fara badan iyo sharaab kasta oo qof kasta u baahan yahay ukumo intaas kadib nin ka mid ah kooxdii gudaha joogtay ayaa waxa uu bilaabayaa inuu si kadis ah qoray ula soo baxo laakiin nasiib wanaag gabar ayadana sidoo kale meesha joogtay ayaa kala hormarayso oo meeshaas waxaa ku badbaadaya dadkii meesha jooga ayagoo aad u qayliyay intaas kadib waxaa loo gudbayaa qaybta xigta waxay ku arkayaan inay yaalaan geedo waxyaabo aysan weligood arkinin oo aad u yaab badan dagaalka ayuu sii wadayaa ayagoo oo xaalad xun ku jira waxaa soo muuqanaya TV live waxaana ka soo muuqanaya in odaygii da'da ahaa la dilay waa uu xanaaqaya Randi asagana waxa uu tooganayaa naagtii leaderka ka ahayd kooxdan waxa uu raadinayaa ninka ka dambeeyay sharciyadan dejiyay qaybtan waxay ku arkayaan dad aad u libisan jabigooda uu ka qasneen cabitaan cunaya cunto nooc kasta maba oga wax ka socda adduunka bahashaalkooda qoraal akhriskooda ay iskaga jiraan intaas kadib baar kala duwan ayay imaanayaan halka dadkii baqiiriinta ahaana noloshooda ay adkeed Randi waxa uu ku talagalayaa in uu raadiyo ninkii ka dambeeyay sharciyadan waxaana ku soo baxaya nin qoro wata halkaas waxa ku dhex maraya dagaal ilaa midka kale oo xabadaha uu ku dhameeyo waxa jiray wiil yariis oo xabadaha isku dhigay si uu u badbaadiyo Randi intaas kadib nolosha waxa ay socotaba waxa uu ku talagalayaa in uu raadiyo
ninkii ka dambeeyay falkan oo dhan Randy xasuus ayuu gelayaa waxa uu dareemayaa gabar mar la cunay ayadoo baahi darteed loo cunay sidoo kalena wiilkeedana la cunay baahi darteed si ay u badbaadaan waxa kaloo si kale maskaxdiisa ku soo laalaabanaya ninkii waayeelka ahaa oo xushmeyn jiray oo asna la toogtay si live ah waxaasoo dhan maskaxdiisa marka ay ku wareegaan waxa uu ku qasban yahay hadda dadka haray in uu badbaadiyo intaas kadib waxa ay ku tashanayaan inay raadiyaan ninka sharciyadan dejiyay wax yar kadib waa ay dhaqaaqayaan gabar ayaa waxay u sheegaysaa in uu soo galo gudaha markuu uu soo galo waxa uu ku arkayaa arrin ka yaabisay waxaa ku jira nin oday ah kaas oo asna sidoo kaleeto cabitaan cabaya qudaar iyo waxyaabo nafaqaadana meesha ku haysta asagii ninka Kuuriyaanka ah waxaa la ogolaanayaa inay gudaha u soo gudbaan waxaana laga furayaa albaabka markay gudaha u galaana waxay ku arkayaan in uu ku jiro nin oday ah odaygii ayaa meeshaas wareysi ku dhex maraya wuxuuna weydiinayaa yee tahay cidda ka dambeysay in sidaan dadka loo galo wuxuuna u sheegayaa arrin ka yaabisay oo ah cidda ka dambeysay barnaamijka inay tahay odaygii faqiirka ah ee qaybta dambe kula jiray ee la toogtay ama Randy oo aad u xushmeyn jiray Randy waa uu rumaysan weynayaa in arrintaas jirto laakiin wuu ugu celcelinayaa intaas kadib wax walba ay u cadaanayaan waxaana tareenka ama filimku uu ku dhamaanaya ayadoo oo nolosha ay ku soo laabatay si caadi ah qof kasta oo dhulka joogana uu noqday ama xaaladii nolosha ay dhulka ka jirtana ay caadi ku soo laabatay wuxuu filimku ku dhamaanaya ayagoo oo maraya meel barafa sidoo kale tan xayawaanada ay dib u soo laabteen sidoo kale bahalka bowlka ku nool ee cirifka adduunka ee barafyada isagoo oo caadi ah iyo gabadhii iyo atoorihii oo meeshaas ka soo baxaya